filimkani waa filim cabsi badan intii aan daawanayna dhowr jeer ayaan lafahayga u cabsaday waa ka mamnuuc inuu daawado qofka yar da'da 18 sano filimku waxa uu ku bilaabanayaa sanadii 1980kii harada la yiraahdo Crystal waxa aan arkaynaa islaan ceyrsanaysa gabadh dhalin yar doonaysana in ay disho islaantan waxay dhashay wiil yar oo ku dabaalanay harada waxayna u malaysay in dadkii harada kula dabaalanayay wiilkeedii Joyson ay dileen waxayna islaantu dishay dhammaan dadkii harada ku dabaalanayay waxaana ka soo badbaadiyay gabadhan oo ka bareeyay in aysan dilin hase yeeshee si kadis ah ay gabadhu bir ay wadatay islaanta madaxa uga dhufanaysa kadibna madaxa ay birtu ka galaysaa waxaan arkaynaa wiilkeedii Joyson oo aan dhimane uu imaanayo hooyadiis markaas ayay waxay leedahay iyadoo sii dhimanaysa hooyada u soo argo kadib filimku waxa uu nadul geenayaa dhacdada 29 sano kadib waxaan arkaynaa koox dhalinyaro ah ayaa go'aansanaysa in ay boqdaan qiimaha harada Crystal si ay fasaxooda ugu qaataan habeen ay ku noqonaysaa kadibna ninkan oo magaciisa la yiraahdo Wade ayaa asxaabta uga sheekeynaya qisada islaantii la dilay iyo wiilkeedii oo soo laabtay doonayana inuu hooyadiis dardaarankeedii fuliyo oo qof kasta uu arko dilo kadibna waxaan arkaynaa Wade oo banaanka u soo xaajo doontay waxa uu arkayaa geedka laga sameeyay xashiishka ee marijuana aad ayuu ugu farxayaa kadibna waxa hortiisa ka soo muuqanaya Joysonkii dad qalka noqday Mike iyo gacalisadiisa Whitney ayaa iyaguna guri cidla ah imaanaya oo aan la deganayn iyaguna labadana asxaabta ay kamid ahaayeen guriga ay galayaan waxayna ku arkayaan katiin uu sawir ku dhagan yahay kadibna Mike ayaa ku yiri gacalisadiisa Whitney xusuus ahaan u qaado waxay kale oo ay arkayaan sariir ay ku qoran tahay Joyson waxaan kale oo aan arkaynaa Rich oo raadinaya saaxiibkiis Wade kadibna waxa uu arkayaa isagoo oo la dilay kuna tirsan geed sidoo kalena jirkiisu go'an yahay wuu cabsanaya waxa uu go'aan u soo cararayaa teendadii uu gacalisadiisa kula jiray waxa uu arkayaa gacalisadiisii oo xarg inta kor looga xiray dab lagu hoos shiday iyadoo oo wada guban rabta kadibna Rich ayaa arkaya wuu u soo ordayaa si uu caawiyo balse waxa uu ku dhacayaa dabin loo dhigay waxaana ka go'ay salub aan u soo laabano Mike iyo gacalisadiisii Whitney ee ku jiray guriga Joyson Mike ayaa waxa uu arkayaa unuunkii islaantii dhashay Joyson inta uu ka naxayo dhulka ku tuuraya kadibna Joyson oo meeshii yimid ayaa ceyrsanaya labadoodaba kadibna Mike mindi ayaa gacanta laga gelinaya dhulka ayuuna habsaday waxa uu gacalisadiisii ku yiri carar oo hay sugin Whitney siday u ordaysay waxay ka hortimid lamaanihii la hilbeeyay waa Rich oo luka dhaawacan waxa uu ka codsaday in ay caawiso iyadoo oo caawinaysa ayaa horteeda waxa ka soo muuqday Joyson kadibna Rich ayuu faas madaxa kaga soo halgaaday madaxa ayuuna faas kaga galay gabadhiina waxay damcaysaa in ay ka cararto naxdin darteed ayay ka ciwaayaysaa kadibna gadaal ayay u siqaysaa filimku halkaas ayuu kaga soo wareegayaa muuqaalkaas waxa uu nadul keenayaa usbuuciye kadib koox dhalinyaro ah ayaa waxay imaanayaan supermarket wayna ka dukaamaysanayaan sidoo kale waxa supermarketka imaanaya Whitney walaalkeed oo kale la oran jiray oo waxa uu raadinayaa Whitney maadaama ay waayeen waxa uu ka codsanayaa dukaanlihii inuu supermarketka ku dhexdhajiyo sawirka walaashiisa Whitney kooxdii dhalinyarada ah safarkoodii ay sii wadanayaan balse Whitney isagu waxa uu hor taagan yahay supermarketka hortiisa waxa uu arrinka walaashiisa kala hadlayaa sargaal boolis ah waxa uu sargaalku leeyahay walaasha haradan iyo aageeda waanu ka weynay waxa daliil ah oo cadeynaya inay halkaan joogtana ma hayno waxaan filayaa in gacaliyaheedii ay halkaas iskala baxsadeen Whitney walaalkeed kuma qanacayo hadalka sargaalka kooxdii dhalinyarada ahayd waxay imaanayaan guriga saaxiibkood hogaaminayay ee Trent Clay isna sida uu socday ayaa waxa uu imaanaya guriga Trent dabcan waxa uu ku soo arkay supermarketka oo ay ku kulmeen waxa uu Trent isku dayayaa inuu guriga ka cayriyo ninkan hadalla kulkulul ayaana dhex maraya gabadh kooxda Trent la socotay ayaa dhahaysa hadii aad guriga inuu nala joogo aad u diideen anaa walaashis la baadigoobaya waxaan kale oo aan arkaynaa nin makaanikiista oo gurigiisa iska jooga ayaa sharqan waxa uu ka maqlayaa dabaqa sare ee gurigiisa kadibna isaga oo baarbaaraya meesha sharqantu ka yeertay ayuu Joyson gadaal uga imaanaya barta ayuuna ku dilayaa waxaan arkaynaa wiil iyo gabadh ku baashaalaya doon yar oo ay wateen gabadha wiilka la hadlaysa ayaa wiilkii falaar madaxa lagaga dhufanaya kadibna waxay arkaysaa muuqaalkan waa Joyson oo ka soo eegaya harada garkeeda kale carar ayay maagtay waxayna quusitaan ku tagtay gowgii kale ee ay ka aragtay maahana kii kale iyadoo ka dhuumanaysa buunda yar oo biyaha la dulmariyay ayaa madaxa bir ka gelinaya dadqal Joyson waxaan arkaynaa kale oo yimid haradii Crystal isaga iyo gabadhii ka soo raacday guriga Trent waxaan arkaynaa iyaga oo baarbaaraya qiimaha harada Crystal siday u socdeen ayay waxay ka soo duldhacayaan gurigii dadqal Joyson
waxayna arkayaan Jason oo markaas guriga ku soo socda qofna ku wata garabkiisa waxa uu dareemayaa dad qalku in dad meesha joogaan kadibna waxa uu daarayaa leerarka cidna waa arki waayaya markii uu meesha ka dhaqaaqo ayaa kale iyo gabadhii meesha ka cararayaan sidii ay u socdeen ayaa kale waxa uu ku kufayaa xarig siriq ahaan meesha loo dhigay xarigaas oo ku xirnaa god ka hooseeya meesha ay kormarayeen waxayna ogaanayaan in qof la afduubtay uu ka hooseeyo kana dhaxqayrinayo meesha waa ay ka cararayaan meesha kadibna waxaan arkaynaa Whitney oo afduubnay Jason iyadoo isku daysa jawaan meesha yaalay oo Jason uga tagay inay ka baarto balbir ama waxa isaga furto silsiladan ku xiran kadibna waxay arkaysaa warqado baafin ah oo walaalkeed meel kasta ku dhajiyay dabcan Jason gacantiisa ay warqadahaasi soo galeen ugu dambeynna siday u dadaalaysaa ay ku guuleysanaysaa inay iska furfurto silsiladii ay ku xirnayd kale iyo gabadhii la socotay ayaa ku soo laabanaya guriga Trent waxay qaadanayaan teleefankii guriga waxayna kala hadlayaan booliska waxayna u sheegayaan inay dilal ka dhaceen harada Crystal Jason oo yimid agagaarka guriga Trent ayaa dilaya mid kamid ah saaxiibadii meesha yimaaday Whitney oo baxsad ah ayaa inta aysan ka dhamaan meeshii lagu haystay ayaa waxa qabanaya dad qal Jason meeshii ayuuna dib ugu celinaya mid kamid ah asxaabta ayaa waxa uu raadinaya wiilkii Shineeska ahaa ee saaxiibkiisa ahaa ee asxaabta kamid ahaa markaas ayuu arkaya isaga oo la dilay ka baxsay ayuu isleeyahay meesha xoogaa buu ka cararaya kadibna Jason baa faas ka soo daba tuuraya dhabarka ayuuna ka galaya ugu dambeynna barta ayuu ku dilayaa asxaabtii Trent ayuu gudaha guriga ugu galayaa kadibna gabar saaxiibtii Trent ahayd ayuu neefta ku dhajinaya oo neefta ayuu sidaas ayuu ku dilayaa kadibna waxa uu ku calaqayaa darbiga albaabkii uu ku dilay ayuu ku calaqayaa askarigii booliska ahaa oo yimid oo albaabka garaacaya ayuu isha ilaa maskaxda ayuu Jason ka gelinayaa bir Trent ayaana albaabkii xabad kala daalaya kadibna gaarigii booliska ay damcayaan inay ku cararaan kadibna gabadhii saaxiibtood ahayd ee la socotay ayaa kor ka soo dhacaysa qof kastana hortiisa ayuu cararayaa Trent isaga oo wadada ku cararaya ayaa waxa uu arkayaa gaari kadibna waxa uu ka cabsanayaa isaga oo gaarigii ka baqaya yani inuu raaco ayuu rabaa gaariga uuna ka baqaya oo uu qaba Jason ayaa gadaal looga imaanaya kadibna wuu dilayaa waxa uuna ku dhajinayaa gaarigii ficnaan lahayd inuu gaariga raaco naftiisana badbaadiyo aanu soo laabana kale iyo gabadhii isla cararay waxay imaanayaan meeshii ay Whitney ku xirnayd waxayna furfurayaan Whitney waxayna ku dhex cararayaan godkii ay ku xirnayd waxaana ka soo xirmaya godkii dib ay u laabanayaan wayna ka baxsanayaan godka waxaana ka soo horbaxaya Jason kadib dagaal ayaa waxa dhex maraya Jason iyo Clay bir wareegta ayaa waxa shiday Jason isagoo wajiga u galin raba birtan wareegaysa Clay ayaa walaashiis Whitney u soo taagtay katiinkii ay ku sawirnaayeen hooyadiis iyo aabihiis markuu dhankeeda soo aaday ayay bir silsilad ah qoorta uga tuureen kadibna hoos bay u jiideen isna waa ku dallacmay kadibna bir ayay xabadka ka gelisay iyadoo oo leh igu salaan hooyada kadib meedkii Jason waxay ku tuureen harada iyagoo oo bartii iska fadhiya ayaa Jason ka soo dhexbaxaya haradii waxa uuna ku dhagayaa Whitney filimkiina halkaas ayuu ku dhamaanaya